الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. alxamdulilah walaalayaal ilaahay jala wacalaa ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah haddana naga dhigay ummadii nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaa noo socday kayfa nastaqbilu ramadaan. hal xalqa ayaan hore usoo qaadanay bisha ramadaan inaan kusoo dhoweyno bisalaamati sadri waalcafi can lmuslimiin. usbuucii hore ayaan soo qaadanay bixamdi illaahi caza wajal. xalqadeeni labaad waxay tahay kayfa nastaqbilu ramadaan. ramadaan sidaan kusoo dhoweyneynaa, waxaan kusoo dhoweyneynaa bitawbati waalawbati ilaa raafici asamaai bilaa camad. towbadkeen iyo noqosho allihii cirkaan tiir la-aanta taagay inaan u towbad keenno. bisha ramadaan waxaan rajeyneynaa inay nagu soo dhalato anagoo towbad keenay min jamiici dunuubi waalmacaasi. dunuubta iyo macaasida oo dhan anagoo ka towbad keenay, sagiiriha wa kabiiriha, keedii weynaa iyo keedii yaraa anagoo ka wada towbad keenay inuu bisha ramadaan nooga soo dhasho biidn illah. ilaahay jala wacalaa wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah. ku dheh nabi muxamedow calayka asalaatu wassalaam, addoomaheygii xadgudbayow oo nafafyaalkoodii ku xadgudbayow, raxmadda ilaahay ha ka quursanina, ilaahay naxariistiisa ha ka quursanina jala wacala. ilaahay fadligiisa tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu. ilaahay ma dhihin jala wacalaa qul yaa cibaadiya aladiina qaamuu, qul yaa cibaadiya aladiina sallow, qul yaa cibaadiya aladiina saamuu, qul yaa cibaadiya aladiina waxaduu. ilaahay ma dhihin jala wacalaa kuwa addoomaheygii ohow oo soomayow, addoomaheygii xoolaha baxsanayow, addoomaheygii salaada dukanayow, addoomaheygii ilaahay waxidayow. ilaahay saa ma dhihin. ilaahay wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu, addoomaheygii xadgudbayow. allah, adigoo xadgudbaaya haddana ilaahay jala wacalaa xaggiisuu ku aaneynayaa. fiiri, adigoo naftaadii dulminayo oo naftaadii ku xadgudbayo ayuu ilaahay addoonkeygii ayuu ku leeyahay jala wacalaa. alla ilaahay naxariis badana. intaas waxaa lagu bidhaaminayaa ilaahay inaad u toobad keentid jala wacalaa. xadgudub kasta ha kaa dhaco, dembi walba ha kaa dhaco, ilaahay u toobad keen, ilaahay u laabo jala wacalaa. laa taqnatuu min raxmat illaah. raxmada ilaahay ha ka quursanina, intay doonto dembigiina hala ekaato. ilaahay u towbad keena jala wacalaa. ilaahay u towbad keena, ilaahay u noqda tabaaraka wa tacaala. haween walba haweenada ka mid ah ilaahaygii boqorka ahaa jala wacalaa ayaa soo degayo nusuulan yaliiqu bijalaalihi subxaanah. markaasuu leeyahay kamaa fi saxiixayni ana almalik, ana almalik, aniga boqorkii weynaa ayaan ahay, boqorkii weynaa ayaan ahay. man da aladii yadcuunii faastajiiba lah.
yaa waaye kan ibaryayo aan ducadiisa ka ajiibayo. man da aladii yas'alunii fa ucطiyah, yaa waaye kan wax iweydiinayo aan siiye. man da aladii yastakfirunii fa akfira lah, yaa waaye kan dembi dhaaf iweydiisanaya aan u dembi dhaafe. falaa yazaalu kadalika xataa yudii'a alfajru. allah, ilaahay fiiri raxmadiisa. nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay sidaa kama zuulaya ilaa fajarka uu iftiimo, ilaa fajarka uu dilaaco, salaada subax ilaa laga aadaamayo. ilaahay sidaasuu u dhawaaqayaa haween walbo. goormay bilaabanaysaa? thuluthu leyli alakhiir, 8 saac wixii ka dambaysa ayaa raxmadii ilaahay intay soo shubanta haween walba weeyaan. markaasuu ilaahay dhahaya addoomihiisa ku dhahaya, war yaa dan leh aan siiye, yaa wax iweydiisanaya aan siiye, yaa dembi dhaaf iweydiisanaya dembigiisa aan u dhaafee, yaa ibaryaya aan ka ajiibee ducada. allahu akbar. ilaahaygaas naxariista ballaaran iska leh, bal fiiri sida addoomihiisa uu usoo dhaweynayo subxaanahu wa tacaala. kolka raxmadaas maadaama aan aragnay, hada tub min alaan, hadda laga bilaabo rabbigaagi uu noqo tabaaraka wa tacaala. hadda towbadkeen, qofkan ilaahay addoonkiisa ahow, hadda ilaahay u towbadkeen jala jalaaluhu. ilaahay towbadaadii wuu ku farxayaa, towbadaadii ilaahay aad buu ugu farxayaa. waa tii nabigu uu yihi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay wuu farax badan yahay, axadkiini ayuu ilaahay ka farax badan yahay. axadkiini oo safar galay, daabadiisa wata, daabadiisa oo raashinkiisa iyo sharaabkiisa u saaran, meel bahgooyo isagoo marayo, ayaa hashii uu watay ay ka baxsatay. way oroday, isagana wuu bursaday, wuu gaari kari waayey, way ka baxsatay, salkeedii raadkeedii male. markaasuu ka soo laabtay isagoo quustay. kolka wuxuu yidhi, meel bahgooyo ayaad joogtaa, dadkuuma dhowa, haddaad dhimanaysid geedaas hoosteedii iska seexo, meeshaa ku dhimo. geed har leh hooskeedii intuu yimid ayuu seexday, indhaha isagoo isku qabtay oo isku diyaariyey inuu dhinto. isagoo indhaha isku haayo ayuu hal mar indhaha kala furay. wuxuu arkayaaba hashiisoo meesha u taagan, daabadiisoo meesha u taagan, oo sharaabkii iyo dacaamkii wax walba u saaran. markaasuu farxay, wuu kacay, daabadii hogaankeedii intuu qabtay ayuu farxaddii intay ka badatay ayaa wuxuu yidhi, allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk. akhطa'a min shiddati alfarax, farxadda darnaanteedii ayuu la gifay. markaasuu yidhi, ilaahow adiga addoonkeyga ayaa tahay, anigana rabbigaagii ayaa nahay. wuu gifay. fiiri, farxaddii intay ka tambadisay wuxuu dhahayay wax kale isma oga. fiiri meeshii la rabay, allaahuma anta rabbii wa ana cabduk, ilaahow rabbigeyga ayaa tahay, anigana addoonkaagi ayaa nahay. wuu gifay. muxuu la gifayne? min shiddati alfarax, farxadda darnaanteedii, farxaddiyaa ka tambadisay. markaasuu gifay. fiiri, faraxaas addoonkasuu u farxayo, ilaahay baa ka farax badan markuu addoonkiisa u laabto. allahu akbar. addoon yahaw ama addoon yahay, markaad ilaahay u towbad keentid tabaaraka wa tacaala, ilaahay towbadaadii wuu ku farxayaa, ilaahay towbadaadii wuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala. kolka hadda laga bilaabo aan towbadkeeno walaalayaal, waa inaan ka qoomamoonaa wixii naga dhacay, xumaatadii naga dhacday, wixii zalladii iyo sambariiraxashadii naga dhacday, dhammaan inaan towbadkeeno. maxaa yeelay ilaahay jala jalaaluhu yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahiriin. ilaahay kuwa towbadkeenaya ayuu jecel yahay, kuwa isdhahiraya ayuu ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacaala. wayaqbalu towbata altaa'ibiin wayafraxu towbata almudnibiina min amhaali. ilaahay wuu aqbalayaa dadka towbad keenaya towbadoodii, dadka dembiilayaasha ah towbadoodii ilaahay wuu ku farxayaa. sida hadda anigoo kale markaan towbad keenno, ilaahay towbadkeenkeeni wuu ku farxayaa subxaanahu wa tacaala. fii zamani nabiy llaahi muusa calaa nabiyina wa calayhi salaatu wassalaam ayaa waxaa dhacday awaar ba-an ayaa dhacday. nabi muuse calayhi salaam reer banuu israa'iil ayuu la baxay lisalaati listisqaa, salaad istisqaa inay dukadaan. salaadii bay dukadeen, way ducaysteen, roob ma soo di'in. ilaahay nabi muuse ilaahay buu la hadlay, rabbiyow salaatul istisqaa waan dukanay, roobkiina ma hayno.
markaasaa ilaahay wuxuu yidhi jala wacalaa lianna fiikum cabdan caasiya laa ilaaha ila allah. waxaa idinku dhex jiro addoon caasi ah, hal addoon oo caasi ah ayaa idinku dhex jiro, addoonkaa dartiisa ayaa roobka idinku siin waayey. nabi muuse wuu qayliyey calayhi salaam, yaa banii israa'iil man kaana minkum daa macsiyah falyactazilna. war reer banuu israa'iilow, ninkii dembi galay oo macsi galay oo xumaan ka dhacday, war naga dhexbax, dartaadi ayaa roobka lanagu diiday, warnayow naga dhexbax. ninkii wuu isdareemay asaga in la haysto. khalqigaas tirada badan hadduu ka dhex baxo waa la dareemayaa qofka dembiilaha asaga inuu yahay. markaasuu qalbiga ka ooyey, qalbiga ayuu ka ooyey, ilaahow khalqigaan ha igu ceebaynin, rabbiyow raxmaanow ummadaadii khalqigaagii ilaahow ha igu dhex ceebaynin, hadda ayaan kuu towbad keenay, wixii iga dhacay rabbiyow ii dhaaf, rabbiyow ha ifadaaxaynin. ilaahay jala wacalaa roob ayuu soo dejiyey. nabi muuse ayaa yihi, rabbiyow roobkii waadna siisay, addoonkiina managa dhex bixin. ilaahaygii sataaru lcuyuubi ahaa, gafaaru dunuubi ahaa subxaanah wuxuu yihi, liannahu taaba towbatan baynii wa baynah. addoonkaygii waa ii soo laabtay, addoonkaygii wuu ila heshiiyey, addoonkaygii wuu ii towbad keenay muusow. markaasaa nabi muuse wuxuu yihi calayhi salaam, rabbiyow addoonkaas inaan arkaan jeclahay, addoonkaas sababtiisa roobka aada nagu siisay inaan arka ayaan jeclahay rabbiyow. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, satartu calayhi wahuwa yacsiinii fakayfa afdaxuhu waqad taaba ilay. addoonkaygii isagoo i caasinaayo ayaan ceebtiisa asturaayay, hadda isagoo addoonkaygii ila heshiiyey oo ii towbad keenay, sidaan u fadaaxaynaya. allah huwa arxamu raaximiina jala jalaaluh, huwa arxamu min abiika wa ummik. hooyadaa iyo aabbaha ilaahay isaga kaaga naxariis badan subxaanahu wa tacaala, wax ilaahay kaaga naxariis badan ma jiro. arxamu raaximiina jala jalaaluh, inta naxariisata ilaahay isagaa u naxariis badan subxaanahu wa tacaala. ilaahaygaa naxariista ballaaran bixinayo, addoomihiisa inuu fadaaxeeyo ilaahay ma rabo. mar haddaad u laabatid ilaahay dembigaagii wuu asturayaa, dembigaagii wuu dhaafayaa jala jalaaluh. ilaahay maxaa ka naxariis badan subxaanah, arxamu raaximiina jala jalaaluh. kolka bisha ramadaan walaalayaal waxaan kusoo dhawaynaynaa bitawbati walawbati ila allahi jala jalaaluh. ilaahay inaan u towbad keeno, ilaahay inaan u laawano subxaanahu wa tacaala. waxaan kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala bisha ramadaan uuna gaarsiinayo aan kusoo dhawaynaynaa bisha ramadaan bikahrati tilaawati lqur'aan. qur'aanka badi inaan akhrino, qur'aan badan inaan akhrino, qur'aanka akhrintiisa inaan badino. maxaa yeelay bisha ramadaan camalka la samaynayo waa adcaaf mudaacafa, ilaahay wuu ku laablaawayaa jala wacalaa. imaamu shaafici bisha ramadaan wuxuu qur'aanka dhamaynayay 60 jeer, 60 jeer, hal khidma maalintii, hal khidma habeenkii, hal khidma maalintii, hal khidma habeenkii. bal fiiri raggaas qur'aanka u macaanaa, akhristiisa ayaa u macaaneyd. wax walba intay joojiyaan qur'aankaasi qaabilayeen, qur'aankaasi akhrinayeen. waa tii nabigu u yihi sala allahu calayhi wasalam, man qara'a xarfan min kitaab illaahi falahu bihi xasana. ninkii hal xaraf kitaabka ilaahay ka aqriya, halka xaraf wuxuu ku helayaa xasano. waalxasanatu bicashri amhaaliha, halka xasanana 10 jibaaraa loogu dhufanaa. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مدها يبوير النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم انت هل حرف بهمايو، لكن ألف تكاليجي وحرف، لام تنوى حرف، ميم كنوى حرف، وسد حرف. ألف لام ميم لك 30 حسنة. الله أكبر. ألف لام ميم آيات أخرسي 60 حسنة آيات ليس، لأن هلكي حرفات كوه ليس 10 حسنة. 6 حرف مركات أخرسي 60 حسنة آيات ليدهي. بل كور قيمها قرآن كلوه ليو قرآن كمركي لأخرنا يبلها كلاتا أجاساسة. فما بالك بمن يقرأ القرآن في شهر رمضان
qofka bisha ramadaan qur-aanka akhrinayo maxaad u malaysaa marka bisha ramadaan wax walboo la samaynayo waa lagu laablaabayaa kolka bisha ramadaan walaalayaal akhrintiisa aan badino qur-aanka waxa la qabto qur-aanka badintiisa akhrintiisa oo la badiyo ayaa ugu weyn dadkii hore duruusta kale xataa intay joojiyaan cashirada kale intay joojiyaan qur-aan akhrisay usoo jeesanayeen bas bisha ramadaan waxaan kaloo kusoo dhaweynaynaa walaalayaal bikathrati ducaa ducada inaan badino wax la qabto waxaa ugu weyn ducada maalintii oo dhan afkaaga ilaahay dartiisa u xiran yahay jalla jalaaluh wax ma cunaysid wax ma cabaysid waxii oo dhan ayaad ka soontay ma arkaysaa naagtaadi xalaasha ku ahayd ayaa lagaa joojiyey cabitaankii sharaabkii ayaa lagaa celiyey maqribkii agtiisa markii la gaaro qoraxda oo dhici rabto ducadaadii markaad gacmahaagii kor u taagtid ilaahay ducadaada ugu aqbalaya subxaanahu watacaala nabiga ayaa yihi sala allahu calayhi wasalam ina liلصaa'imi cinda fitrihi dacwatan laa turad qofka markuu sooman yahay wuxuu leeyahay duco markuu afurayo duco ayuu leeyahay aan laga celinaynin maanta oo dhan waa soomanayd qoraxda way dhici rabtaa qiblada u jeeso adigoo weysidaadii qabo salidaadii ku fadhiiso musallahaagii tag gacmahaagii kor u tag ilaahay lafaq ilaahay bari subxaanahu watacaala ducadaas ilaahay waa ka aqbalaya subxaanahu watacaala waatii nabigu uu yihi sala allahu calayhi wasalam ina rabbakum xayiyun kariim yastaxyi min cabdihi idaa rafaca yadayhi ilayhi an yarudahumaa sifraa allahu akbar rabbigiini waa alla xishood badan deeqsi badan ilaahay wuxuu ka xishoonayaa axadkiini markuu gacmaha kor ugu taago yaa allah yaa allah yaa allah uu leeyahay gacmahaasoo eber ah ilaahay inuu soo diro wuu ka xishoonayaa ilaahay ku bishaarayso ayuha alcabdu lilah gacmahaagoo maran ilaahay ma soo celinayo gacmahaagoo eber ah ilaahay ma soo celinayo subxaanahu watacaala kolka inaan ka wada faa'iidaysano walaalayaal ducada inaan badino ma arkaysaa khayraadka inaan badino qur-aan akhriskana inaan badino waxaan kaloo bisha ramadaan kusoo dhaweynaynaa bitaraawiix bisha ramadaan taraawiixdana inaan ku dadaalno oo kulla layla min layaali shahri ramadaan taraawiixda inuusan naga fakan inuusan naga baxsan inuusan naga fakan taana waxaan ku heli karnaa markaan afurayno wax yaroo qiyaasa inaan cunno cabno si salaada taraawiix nashaad iyo firfircooni aan ugu aadno laakiin haddii wax walbo la cunaayo la cuno oo calooshii la buuxiyo hadda maxaa la dukan karayaaba ma dukan karaysid saas darteeda waxaa lanaga rabaa walaalayaal wax qiyaasa inaan cunno si salaada taraawiix nashaad iyo firfircooni aan ugu helno ayib waxaan kaloo bisha ramadaan kusoo dhaweynaynaa biitcaami acaam dadka inaan raashin siino dadka inaan quudino dadka inaan ixsaan u samayno dadka inaan gacan u lahaano dadka inaan afur siino bisha ramadaan hal qof haddaad afur siisid qofkaas ajarkiisa oo kale ayaa adigana lagu siinayaa waatii nabigu uu yihi sala allahu calayhi wasalam man fatara saa'iman kaana ka siyaami ajrih qof sooman qofkii afur siiya qofkaas ajarkiisa oo kale ayaa isagana la siinaya allahu akbar marka fiiri adiga waa sooman tahay qof kale ayaad afur siisay laba soon ajarkiisaad helaysaa adiga ajarkay aa soomaneed iyo qofkan aad afur siisay ajarkiisa oo kale asagana ajarkiisa waxba laga nuqsaamin maayo ajarkiisa waa uu leeyahay ajarkiisa oo kale ayaa adigana lagu siinayaa fiiri fadliga ilaahay haddii maalintii laba qofood aad afur siisid ka waran saddex qofood soonkoodii ajarkiisa ayaad helaysaa adiga soonkaagii iyo labadan qofoodoo aad afur siinaysid fiir kolka adiga le waayo intii awoodaadi ah badso khayraadka badso intaa dadka afur siin kartid si afur ummadda u naxariiso weliba zamankan hadda aan ku jirno walaalayaal cudurkan iyo balaayahan koroonahan dad qaarkiisa badi shaqadoodii waa uu baaba-ay dad badi waxaa weeyaan ma shaqaysan karaan dad baa iska xanuunsan waktigan dhibaatada dhacayo in xoolahaaga jaabka gacanta aad soo gelisid dadka aad afur siisid xiliyadan oo kaleeta ugu ajar badan maxaa yeelay zamanka barwaaqada lagu jiro iyo zamanka dhibaatada lagu jiro sadaqadeedii waxaa fadli badan zamanka dhibaatada lagu jiro in wax lala baxo maxaa yeelay nin walba wuxuu is leeyahay kistaadi adiga isku ilaali la
laakiin qofka iimaanka leh muxuu leeyahay bal ummadan wax u tar, ummadan wax u tar, ummadan wax u qabo ayuu leeyahay. kolka walaalayaal itcaamu saa'imiin ama iftaaru saa'imiin aan ku dadaalno, nuqtadaasayta inaan diiradda saarano, xoog inaan saarno, taasuu ilaahay noogu naxariisanaya tabaaraka wa tacaala. walaa takhsha min dilcarshi iqlaala, ilaahaygii dulcarshiga ahayna xoolaha inuu kugu yaraayo haka baqin. wax hadaad bixisid ilaahay baa bedelkiisa ku siinayo. wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh, wax allaala waxaad bixisaan oo shay-un ah ilaahay baa bedelkiisa idin siinayo subxaanahu wa tacaala. waatii nabigu uu yihi sala allahu calayhi wasalam, ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. maalin ma jirto waaga barinayo, waaga dilaacayo, ilaa maalin walba markuu waaga kala dilaaco laba malag ayaa soo degaysa uu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam. labadaa malag midkoodii waa ducaynaya, wuxuu leeyahay allaahumma acti munfiqan khalafa, ilaahow kan xoolaha bixinaya bedel sii, ilaahow bedel sii, bedel sii. malag baa kuu ducaynaya, fiiri. kan kalena wuxuu leeyahay allaahumma acti mumsikan talafa, ilaahow kan xoolaha ku dhegan ilaahow baaba'si. kan xoolaha aan bixinaynin oo ku dhegan xoolaha, xoolihiisa haysta, ilaahow baaba'si, xoolihiisa baabi'i. kolka fiiri, labadaa malag midna waa duceynaya, midna waa habaartamaya. kolka maxaa wanaag badan si maalin walba malagaa duceynayo ducadiisa aad u heshid, wax cun maalin walba sadaqayso, maalintii wax cun sadaqayso, sadaqada la bax, wax baxso. kolka waxaa weeyaan walaalayaal, sadaqada la bixideedii aan badino, sidaasaan bisha ramadaan kusoo dhoweynaynaa walaalayaal. alxamdu lilaahi wathanaau lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam. allahuma laa tadc lana fii maqaamina hada danban ilaa gafartah, walaa haman ilaa farajtah, walaa daynan ilaa qadaytah, walaa mariidan ilaa shafaytah, walaa maytan ilaa raximtah, walaa cayban ilaa satartah, walaa saa'ilan ilaa acطaytah, walaa xaajatan min xawaaئij الdunya wاlآkhirati ilaa قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارفع الغمة عن الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وقد رفعت الغمة عن الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد.